Cristiano Ronaldo oo taageerayaashiisa u xaqiijiyay go'aan ay ka baqayeen. Kabtanka xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in koobka adduunka 2026 uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee uu ka qayb galo. Ronaldo ayaa arrintan shaaca kaga qaaday shir jiraayad oo uu qabtay Axadii ka hor kulanka wareegga 16 ee Portugal ay la ciyaarayso Spain. 41 jirkan ayaa soo afjaray hadalhayntii ku saabsaneed mustaqbalkiisa caalamiga ah isagoo sheegay inuusan ka qayb geli doonin koobka adduunka 2030. Ronaldo ayaa yiri, tani waa koobkii adduunka ee ugu dambeeyay aan ku raaxaysano. Hadalka Ronaldo ayaa yimid kadib markii walaashii Katie Aveiro ay hore u sheegtay in tartankan uu noqon doono kiisii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro xulka Portugal. Cristiano Ronaldo ayaa taariikhda galay isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay uguna da'da weynaa ee ka qayb gala 6 koob adduun oo kala duwan isagoo sii xoojiyay magaca uu ku leeyahay kubadda cagta dunida. Dhinaca kale, Neymar oo ku dhawaaqay war ay ka naxeen taageerayaal badan kadib markii Brazil laga reebay koobka adduunka. Xiddiga reer Brazil Neymar Jr ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah ee xulka Brazil kadib markii Seleção looga saaray koobka adduunka 2026 guuldaro 2-1 ah oo ka soo gaartay Norway wareegga 16. Neymar oo 34 jir ah ayaa sheegay in koobka adduunka 2026 uu ahaa tartankiisii ugu dambeeyay oo uu ciyaaro xulka Brazil isagoo soo afjaray safar qaran oo qaatay sanado badan inkastoo uusan ku guuleysan hanashada koobka adduunka. Isagoo la hadlayay warbaahinta ciyaarta kadib ayuu yiri, waan isku dayay, waan dadaalay laakiin hadda way dhamaatay. Halkan ayaan ka bilaabay, halkan ayaan ku dhameeyay wax walba. Hadalkan ayuu ula jeeday MetLife Stadium oo ahaa garoonkii uu kulankiisii ugu horeeyay ee Brazil ku ciyaaray sanadkii 2010 markaas oo ay la kulmeen Mareykanka ciyaar saaxiibtinimo. Isla garoonkaasna uu ku soo gabagabeeyay xirfadiisa caalamiga ah. Neymar ayaa ka fadhiisanaya xulka Brazil isagoo u saftay 130 kulan, dhaliyayna 80 gool, taasoo ka dhigaysa goollaliyaha ugu taariikhda badan xulka Brazil isagoo ka sarmaray halyigii xulka Pele. Weli waxaan barta kaga jirnaa qodobada aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad weli daawanayso oo aadan muuqaalka like saarin muuqaalka like saar siina share garee haddii aad page-ka ku cusub tahay soo follow garee aad baad u mahadsantahay. dhinaca kale Jude Bellingham oo jabiyay rikoor taagnaa 40 sano. xiddiga xulka England Jude Bellingham ayaa galay taariikhda koobka adduunka kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 2 gool ku dhaliyay hal kulan oo koobka adduunka garoonka Azteca. tani haligii reer Argentina Diego Maradona sanadii 1986 sida ay sheegtay Opta. Bellingham ayaa taariikhdan sameeyay intii lagu jiray guushii 3-2 ee England ka gaartay Mexico wareegga 16 ee koobka adduunka 2026 isagoo dhaliyay 2 gool ee ugu horeysay ee xulkiisa. garoonka Azteca Stadium ayaa ka mid ah garoomada ugu caansan taariikhda kubadda cagta waxaana lagu xasuustaa dhacdooyin waaweyn oo uu ugu caansan yahay bandhigii cajiibka ah ee Diego Maradona ee koobkii adduunka 1986. guushan iyo 2 gool ee uu dhaliyay ayaa Bellingham ka dhigtay mid ku biiray liis kooban oo ciyaartooy ah oo taariikh gaar ah ku leh garoonka Azteca isagoo sii xoojinaya sumcadiisa inuu ka mid yahay xiddigaha ugu saameynta badan koobka adduunka 2026. United waxay Chelsea ka doonaysaa mid ka mid ah xiddigeeda qadka dhexe. kooxda Manchester United ayaa xiddiga qadka dhexe ee Chelsea Andre Santos ka dhigatay mid ka mid ah bartilmaameedyadeeda suuqa kala iibsiga iyadoo doonaysa inay xoojiso qadka dhexe hagaagan. sida ay qortay The Guardian, United ayaa u jeesatay Santos kadib markii ay ku guuldareysatay saxiixda Elliot Anderson iyo Matheus Fernandes. xiddiga reer Brazil ee 22 jirka ah ayaa lagu qiimeeyaa ku dhawaad 50 milyan oo pound. wararka ayaa sheegaya in Santos uu diyaar u yahay inuu ka tago Chelsea maadaama uu doonayo fursad uu si joogto ah ugu ciyaaro kooxda koowaad iyadoo Moises Caicedo iyo Enzo Fernandez ay ka horeeyaan safka dhexe ee Chelsea. Santos waxaa ku adkaatay inuu boos joogto ah helo. ugu dambeyntii Real Madrid mise Man City aabaha Haaland oo war weyn ka soo saaray mustaqbalka wiilkiisa. Alfie Haaland oo ah aabaha weeraryahanka reer Norway Erling Haaland ayaa xaqiijiyay in wiilkiisu uu ku faraxsan yahay joogitaankiisa Manchester City hase yeeshee uusan gabi ahaanba albaabka ka xiran suurtagalnimada inuu mustaqbalka u wareego Real Madrid. waraysi uu siiyay shabakada Isbaanishka ah ee DAZN ayuu Alfie ka yiri, Allen aad ayuu ugu faraxsan yahay Manchester City wuxuuna qandaraas dheer kula jiraa kooxda. waxaan rajeynayaa xil ciyaareedka cusub inuu halkaas ku sii nagaado laakiin ciyaaryahan kasta oo dunida jooga wuxuu ku hamiyaa Real Madrid. markii wax laga weydiiyay suuragalnimada in Haaland uu maalin u wareego kooxda reer Spain ayuu ku jawaabay, kubadda cagta wax walba way ka dhici karaan, marna lama oga waxa mustaqbalka dhici kara.
Erling Haaland ayaa dhowaan qandaraas dheer la gaaray Manchester City ilaa xagaaga 2034 taasoo muujinaysa kalsoonida weyn ee labada dhinac ay isku qabaan. Tan iyo markii uu ku biiray Manchester City, Haaland wuxuu saftay 198 kulan dhammaan tartamada oo idil, isagoo dhaliyay 162 gool isla markaana bixiyay 30 caawin. Wuxuuna sii ahaanayaa mid ka mid ah weeraryahanada ugu halista badan kubadda cagta adduunka. Waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee warbixinta. Haddaba daawade, qodobkee kula xiisa badnaa intaan qodob aan ka soo hadlay. Aragtidaada qaybta hoose ee comment-iina wala wadaag aad baad u mahadsantahay. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena si share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. mahadsanid.